وبركاته وزير الدولة وزارة أمنية كذاها تليها عيدا كبوليسك الصوماليات تليه حقيقنا يدمان تلياش وقانا كلا دوان وعيدين سلام يا marka ugu horeysa waxaan ku faraxsanahay kulankan qiimaha badan inaan idin kala soo qayb galo ciidanka booliska Soomaaliyeed waa hooyadii ciidamada intaas kaliya ma aha waa hooyadii dowladnimada asalkeeda waxa waaye hirgelinta sharciga iyo ilaalinta sharciga cidda ka shaqeysa waa ciidamada booliska shalay waji fiican oo qurux badan ayaan lahayn oo dowladeed burbur ayaa dhacay haddana soo kabsasho ayaan ku jirnaa shalay markii ahayd iyo maanta iyo berrito waxaa la rabaa inay noo kala duwanaadaan haddii shalay iyo maanta ay isku mid noo noqdaan ninka ganacsadaha ah oo ganacsiga ku jira faa'iido raadiya haddii shalay faa'iidada uu helay iyo faa'iidada maanta uu helay iyo midda berri uu helayo ay isku mid noqdaan ninkaas hore uma socdo laakiin hadda markaan fiirino ama dhismaha ha ahaado ama saraakiisha taliyaasha meesha fadhida ha ahaado ama sida heerka uu soo gaaray ay soo gaareen ciidamada booliska Soomaaliyeed ee qaybaha kala duwan horumar aad u weyn oo aad u ballaaran ayaa muuqda waxaan u baahanahay qaybaha kala duwan iyo hay'adaha kale oo amniga ka shaqeeya iyo dowladda qaybaheeda kala duwan iyo maamul goboleedyada sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen istaraatiijiyad waa haysaan waa noo soo bandhigteen iyadoo kooban qalab waa haysaan waa noo soo bandhigteen asagoo aad runtii howlgallo waaweyn ay ku jiraan oo waliba qalab casri ah oo wadamo badan oo Afrika iyo Asia ku yaalaan laga isticmaalin baad haysataan inkastoo uu kooban yahay aqoon iyo waayo-aragnimo iyo khibrad idinkuma yara waxaa jooga jiilkii 70-meedii ama 60-meedii booliska noqday iyo jiilkii ka dambeeyay oo dhexe iyo jiil dhalinyaro ah isku dhafan baa meesha jooga oo hoggaanka ciidamada booliska Soomaaliyeed marka khibrad hore mid dhexe iyo markii culaysadaan yimaadeen dhalinyaro firfircoon oo howlgallada ku fiican oo geesiyaal ah intaba waa joogaan haddii marka aan dhaqaalaha aan haysano iyo ciidamada aan haysano iyo qalabka aan haysano iyo istaraatiijiyada quruxda badan oo noo soo bandhigteen oo haysano si sax haddaan isugu geyno waxaan awoodi karnaa dalkeena iyo dadkeena inaan badbaadino booliska wuxuu taagan yahay badbaado booliska uma taagna dagaal booliska wuxuu taagan yahay muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kastoo joogaan nabad inay ku jiiftaan nabad ku soo toosaan shaqadooda nabad u aadaan meheradooda kala duwanana ay u maareystaan si nabad ah waxaan u maleynayaa meesha markii wax la soo bandhigay arrin aad muhiim u ahaad ka tagteen oo tilmaanteen prestationka kuma arkin waxaa laga yaabaa inuu idhaafay waxaa waaye dhaqaaleynta aad dhaqaaleynaysiin agoontii booliska Soomaaliyeed arrintaas waa arrin aad u qiimo badan waa arrin muujinayso dadnimada iyo dareenka bani aadanimo ee booliska Soomaaliyeed in agoontii la dhaqaaleeyo weliba lagu dhaqaaleeyo jeebkooda lacag ay ka soo saareen lacag aan dibadda ka imaan ay tahay in wax la baro oo wiilal iyo gabdho ay ku xareysan yihiin kolleejyadii jiif iyo raashin iyo waxbarasho ay haystaan taliyaha waxaan ka wada hadlaynay oo ku fikirayaa inay suuragal tahay jaamacad in la helo qaybaha kala duwan oo culumta lagu barto haddii dhakhtarnimo ahaan lahayd haddii injineernimo ahaan lahayd haddii dhaqaale iyo sharci ahaan lahayd waana sahlan tahay oo waxaad haystaan isbitaalkii booliska ee Madiino kaas ayaa saldhig u noqon kara in ilmaha Soomaaliyeed agoontaas booliska ay ku tagaan dadkii nafta u soo halgamay waddankan ayagoo nabadiisa ilaalinaya ku baxay inay helaan iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed booliska adeeg inuu sameeyo marka waxay la tahay marxaladdan waxaan rabnaa boolis wada shaqeynaya qaybihiisa kala duwan ama ha ahaado heer federaal ama heer maamul goboleed boolis wada shaqeynaya hoggaanadiisa kala duwan kuwa gobolka Banaadir jooga kuwa ka baxsan iyo boolis ay bulshadu la shaqeynayso booliska wuxuu caawin karaa oo abuuri karaa jawigii nabadda ay ku imaan lahayd laakiin saan uga shaqeyn karnaa bulshadii inay saaxiib la noqoto booliska wuxuu leeyahay kooxdii fanka heegan
aad baa loo jecel yahay soo maaha waa albaab fiican oo bulshada laga geli karo booliska waxay leeyihiin kooxdii kubadda cagtay leeyihiin waa albaab kaleeto oo xiriirka bulshada laga geli karo saldhigyada booliska adeegyada ay sameeyaan waxaa lagu dari karaa adeegyo aad u tiro badan oo ah markuu taliyihii sarkaalkii soo bandhigayay prestationka wuxuu tilmaamay kaysaskii intoodii badnayd 3 meelood oo 2 meel waxaa lagu xaliyey booliska xaliyey marka waayeeleyntaas iyo odayntaas waxay u baahan tahay in la xoojiyo xiriirka bulshada in la xoojiyo annaga wasaarad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan idinkala shaqeyno wax kasta oo ku saabsan haqabtirkiina haddii ahaan lahayd qalab haddii ahaan lahayd dhaqaale wax kasta oo ku saabsan booliska si loo horumarin lahaa waxaan kaloo diyaar u nahay inaan idinkala shaqeyno istiraatiijiyaadka iyo wixii siyaasadda ay ku saabsan horumarinta nabadda iyo badqabka dadka dalka Soomaaliyeed si looga shaqeyn lahaa adinkana waxaan idinka rajeynaynaa hawshiina har iyo habeen baa ku jirtaan laakiin in si joogto ah taliya cusub leh ayaa wuxuu ka dhawaajiyay waaxda qorsheynta iyo tababarada inay leeyihiin xarun cilmi baariseed marka waxaan rajeynayaa xarunta cilmi baaris in la xoojiyo dadka khibradda leh waayo aragga ah oo taliyaasha muddada dheer soo noolaa waxaa laga rabaa inay taariikhdii booliska ay diiwaangeliyaan madaxdii waddankan soo martay boolis bay ahaayeen jenaraal maxamed saad barre jenaraal maxamed abshir jenaraal daawuud jenaraal caydiid jenaraal liiqliiqato hore u soco dadka aad garanaysaanoo dowladnimada saldhigga u ahaa waxay ahaayeen dad boolis ah dadka booliska ah waxay ahaayeen marka laga hadlaya ciidamada dadka ugu aqoonta badan ama ha noqoto xagga luqadaha ama xagga khibradaha ama xagga xataa hobbiga waxaan arki jiray saraakiil boolis ah oo golf ciyaaraya waxaa laga yaabaa xilligii dowladda ay jirtay 1980s 70s 80s toddobaatameydii sideetameydii marka hadalka inaan ku dheeraadaan ma rabo waxaan diyaar u nahay wada shaqeyn waxaan diyaar u nahay taakuleyntiina waxaan diyaar u nahay difaaciina iyo wixii sharciye aad u baahataan iyo wixii xuquuqood leedihiin oo dalka aad ku leedihiin inaan ka wada shaqeyno waxaan diyaar u nahay inaan ka wada shaqeyno sidii bulshada qaybaheeda kala duwan aan ugu dhawaan lahayn saaxiibna ula noqon lahayn bulshadana saaxiibna ula noqon lahayn waa mahadsantihiin